السلام عليكم نبت قلي صاحب بيان ومر كلا إيه إسكو صونا قشطة كوسابسن غير خبيه ولا كان قبلها الصوماليات أو معلومات ديرادة أنا دين كجهم نكن مركي هو المجد عيسى أحمد يعني كوسا قبني هذا وعام كلها أولوية قناة أحمد جيلي أو نكن أنا أفكرته ونكن دباتي قبلها الصوماليات وشخصي قلبات حلي كان مقدشو قبلها السيدة بأن أو هجرت لفها هو سكرت دجالماي dhowr gabdho ayuu mustaqbal tiray kuwa kale wali rakaato ku haysta oo raga xitaa ay rabaan in la haasaawaan lama haasaawi karaan haddaba ninkan xaguu degan yahay intuu uga nool yahay magaalada Muqdisho su'aalahaasi waxay kamid ahaayeen weydiimo tiro badan oo aniga iyo saaxiibkay Zakariya Timcade oo barnaamijkan soo saara ka ahaaba nala weydiinay ninkan Axmed Geele la yiraahdo waxa uu ka degan yahay Muqdisho degmada Yaaqshi si gaar ah Tawfiiq halkaas oo ah saldhigiisa ama meesha uu ku nool yahay waxa uu halkaas ku kireysan qol yar oo uu ah kawaanka gabdhaha Soomaaliyeed uu mustaqbalkooda uga ciyaaro Axmed Geele waa aabe Soomaaliyeed waxa uu jooga hal wiil sida waxoogaha aan ku helnay sidoo kale waxa uu ka shaqeeyaa dhabarka dambe ee shirkadda Beko guri u kireysan oo ku yaala Tawfiiq dhismo ku yaala halkaas waxa uu ka yahay waardiye ama garhaye halkaas uu jooga oo uu bariis ka raadsada tan iyo markii sheekadan ay soo ifbaxday ninkan waxa uu diyaarsanaa dhowr iyo 20 gabdhood oo midba siyaabo kala duwan u ula haasaaway oo uu doonayo inuu shabaqayso ku soo rito waxaana taasi ay keentay markii aan ka hadalnay oo aan faahfaahin badan ka bixinay in gabdhihii ay dib u gurtaan oo ay dareemaan dhulwaadadeedkan ku dhex dhumanaya magaalada Muqdisho wejiga wanaagsan iyo dhagorta qurxoon suudka iyo waxa uu wataba in la daraandiriyay marka hore in hadda ay ku baraarugaan oo ay dib uga gurtaan waa kan markan ila dhageysta dhagal qabihi oo gabdhahaas kamid ah oo su'aal weydiisay oo dhahday waxa laga sheegayo maxaa ka jira sida uu isku difaacay waxa uu dhahay codka waa cod liiga sameeyay codka aan soo gudbinayo codkan aan hadda maqli doontaan bal nala dhageysta وصح أحمد يا كاي هدي أتنا أمسنتها إنا سمعنا هذا فكرة هذا لا ينفعت دنيا قف والبو أو بقول كنول أول ولد عيدي كنا وين مان صور فوتوشوب فوتوشوب لو صواتنا أنا بقول هاي عيدين ماركين وروح أنت ماركين وين مركز دتك أمسنا دات هذه كنت على صومته أنا قلت دت بدنا أساس لو فتي عينه أو ماركين وروح أنت بريكي وحن فان مركز أكو سلامة ولا دتك فكرة دخلنا أمسنا تاي وقرن عدكي أنا دين سوق بالنية عدكن واسكو هالقف وأحمدك وح أقيل أوراديناي وحي أنكشجناي أو رنتها أو الله نقول له أوجا أو إنه جبر الصوماليين هاي مسكين أو حوك كويست كل جد ما هن كان أو قبله أيو سيدا سيلا مدن أوهستا نكن ذاتك ديجان كقار كمل أو نرسل حلو أو شخصيات يقانو حنو شاجين تاني مركي شاكرة أي صوت بحري إنه بنك وريجين إنك أو خلقري لكن haddana uu muujinayo karti inuu wali maaragtay dhagartiis halkiisa ka sii wado sababta ma taqaanin sababta wax kale ma aha ilaa iyo hadda laamaha amniga talaabo sax ninkan kama aysan qaadin ninkan lamana qaban lamana soo wicin halkaas ayuu wuxuu ka haystaa karti dheeraad ah oo ah inuu wali magaalada sidoo uu doono uga soo inaaloon karo oo uu sii dhibaateyn karo gabdhaha Soomaaliyeed marka ugu horeysa intaana cod kale oo muhiim aan idin maqashinin waxaan halkan baaq ugu direynaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka degmada Yaaqshi oo dilaagan aamusan oo ku dhex nool yahay maamulku waxa uu wakiil u yahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kan degmada Yaaqshi dadkiisa Yaaqshi jooga ayuu mas'uul yahay gudoomiye ninkan kugu dhex nool ee degmadaada wasaqeynaya waana wax ka qabata taliyaha saldhiga baaqan oo u jeedinayna hay'adda eedamin baarista dalkana si lamida taas ayaan u soo gudbinaynaa inay shakhsiyan talaabo ka qaadaan mar kale iyo codkan muhiimka ah ayaan maqli doonaa waa isaga oo maqaalinta sida malaayga loo gaado oo kale u tuuraya oo raba inuu soo xirigeliyo gabar Soomaaliyeed oo dheeheeda iyo quruxdeeda uu la yaabay oo la inda daraandaray eriyadiisa hadaa maqashid wallahi waa yaabaysa ila dhageyso waa ku dhawaad hal daqiiqo iyo xoogaa aan maqalno ما صاحبي ما راتا وجهي رسول الله والله بالله الله حافظنا بس كي يدرين بحبتك إيو تفاحية دينا كتا والله صاحبي كي لا نصيب لا تا والله مبانت مركب كي نزليها بيوصل على إنجليز وحافظها بالله مبانت وصاحبي وكو خرج بيدك والله صاحبي
waxaan dunida nasiib u yeelanaa ninku ma arkin oo haddii aan ninka dunida ugu nasiib wanaagsan waxaa noqonaa markaa kasuumada kaa siibaan aadiyo maanta marka saaxiibey soori wallah maalaata wallah sawirka asaarata dilaba wallah war calanka turkiga hadduu kuu shiday hataa mustaka fiican noqonaabe meelaha la wada batuuq waaye ware ilaahay ku dhoora saaxiibey biswa wallah dumarna waa adoo qora dooqna waa kan ugu jira iyo muruysaa wallah saaxiibey soo dhawey saaxiibey no wax walba kugu qarash beeri karaa hataa wallah saaxiibey balka waran ninkaas saas u faaqidaya gabadhaas Soomaaliyeed nasiib wanaag gabadhan waa ay ka badbaaday waayo waxay ka war heshay oo ay ku baraarugtay indhahan ku furatay digniinihii aan bixnay ee ninkan ku aadanaa nasiib wanaag alxamdulillah sidaad maqlayseen waa ninkii oo gabadhaas Soomaaliyeed sida aragtay u kala dhigay boolbool u kala dhigay dhibaateynta gabdhaha uu ku hayo shakhsigan oo hadda xilligan la joogo shaah cadeys ku cabaya tawfiiq waxa kamid ah midan codka gabadhan miskiinta ah ila dhageysta idan oo ooneys waa isaga wax saas telefoonadiisa dhan wuu badaytay hadda loo iga soo waclaan telefoon caadi gacanka telefoonka hadda ku celiyataan ma dhacaayo waa xirayaan lahay meel kale xiriiritaan ma qaado maasantiin ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu jeediyo laamaha sirdoonka waddanka booliiska maamulka gobolka ilaa iyo maamulka degmada uu ninkan degan yahay tusaale maamulka degmada Yaaqshid xitaa wuxuu sii leeyahay waaxda ninkan uu degan yahay maamul ayuu sii leeyahay laan amni ayuu sii leeyahay si guud iyo si gaarba waxaan laamaha amniga ee Soomaaliya ugu baaqayaa in ninkan iyo ragga kaleba ay ku nool Soomaaliya wax laga qabto tusaale waxaa jiro rag kale oo qaarkood laga yaabo dhaqaatiir iyo siyaasiyiin aan ka helin dukumeentiyo cajiib ah oo waliba gabdho yar oo xitaa heer dugsi sare dhiganaya dhibaato ay noo soo sheegeen waliba cadeymo aan ka helno haddii aan soo bandhigno waxaa laga yaabaa qaarkood dadku inay aamini waayaan laakiin cadeymo badan oo sidaan oo kale dhibaato ay geysteen aan gacanteena ku helna waxaa jira kiisaska aan soo bandhigno kiisas aan u qalmin inaan soo bandhigno oo si hoose aan u xallino taas oo ay sabab u tahay ragga qaar ee dhibaatada laga soo sheegay ee dukumeentiyadana soo gaaraan haddana markaan la hadalno qaarkood gabdhihii dib ay u xalliyaan dumarkii ayna soo wacaan kadibna nagu dhahaan ninkii waa heshiinay wax walbuu naga hayna wuu dilaadgareeyo waxaa laga yaabaa sheekooyin badan oo aan soo wadno in ay noqon lahayd haddii aan toos u soo bandhigi lahayd wax aa qaadan weysid laakiin mar walbo tan waa wax dhici karo waxaa laga yaabaa inay walaasha ku yimaado waxaan kaloo baaq u diraa sargaalka waddanka ka shaqeeya ka waran haddii ay gabadhaada ku imaado sheekadan dabcan ninkaas waa dili lahayd Soomaaliya xitaa lama aadi lahayn laamaha cadaaladda si lamida gabadhaana waxaa dhalay aabbo wiil ayay la dhalatay waxaa laga yaabaa inay wiilka la dhashay waa maasantihiin